ina hebel waan ku xiisay sidee igu xiisaysaa waa adigii telefoonka igu dhageystay oona waa warkayga dhageysan waaye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من سلامي أصحابتي ملك السودون كجوكتين وحنا دين الله يا مرة دان إسكو صلاة وني سينا وضع وما هدلي الله ينقو صلاة ويسي الحمد لله ما أنت وحن وضع قصة ما نسوق السيسن كل واحد سعود ألبوم كي أو فري ستيلكا ألبوم ما نسدي لواد واي ما نسد سدحنا ألبوم كالو حرا إن شاء الله ما نسد قصة أيه وضعها يرى الويل الصوماليات أيه إلسو وضاقي وحيكون على الجور الصوماليات يويل الصوماليات marka wuxuu dhahay maansa ahaan marka uu soo qorays maxaad ii dirtay dawladda soo dheh markaas ku laabto waxaan dhahay dadka waxaas macni waa ku caajizayaan magac kale aan bixino markaas aan soo bixiyay dayac marka maansada intaanan gudagelin fadlan subscribe noo saar channelka like saar videoga dad ka heshay share dheh la wadaag asxaabtaada qisada ayaan sheegaa kadib maansada ayaan akhrinayaa maansadan xagaan ay u qoran tahay 3 warqad waay okay qisada waxay ku dhacday gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed oo ku sugnaa magaalada Muqdisho halkii ay isku bartay muddo dheer kadib waxa safartay gabadhii markay safartay wiilkii waxay u safartay dalka Qatar wiilkii ayaa meeshii ku haray marka wiilkii markii meeshii ku haray waxa ku batay walaaci oo qoftii ka maqneed iyo ayadoo ku dhageysatay telefoonkii kadib markaas ay soo wacday ay tiri waan ku xiisay ina hebel waan ku xiisay sidee igu xiisaysaa waa adigii telefoonka igu dhageystay oona waa warkayga dhageysan waaye markaas ay gabadhii iska baxday oo safar kale iska sii gashay Yurubtaas sii gashay wiilkiina safara u soo baxay asagiina Kenya u aaday kadib maxaa dhacay marka gabadhii ayaa waxay sameysay waxay ka shaksaneed wiilkii jeclaa oo u maray dhibkii rafaadkii waa dareemi kartaa markaas ay gabar kale ay ku tiri wiilkaas u gal kadibna u sheekay kadibna jacayl ku abuur gabadhii la soo diray waxay dhahday hay abaayo waan sameynaa gabadhii wiilkii uu soo gashay oo maskiinka ahay markaas ay hadaladii iyo wixii jacayl iyo balaayo waa iska dareemi kartaa kulli qof oo jacayl rabo wuxuu ku hadlay markaas uu dhahay soo dhawow abaayo aniga walaashay ayaa ka dhigtay ee waxaas naga daa marka adiga ahaan waxa ku weydiinayaa marka kaas shakimiya mis khiyaano waay ani waa ku wareeray marka maansadii ayaan hadda bilaawayaa maansadan magaceeda waxa la dayac dabcan waxay ku saabsan tahay nafsi let's start daryeelkiyo wanaaga markaan duubsiga tabay maxaad ii dirtay dawladda dabadaadii iyo muuqa markaan hadalkaagii tabay maxaad ii dirtay dawladda markay saacaduna kala fogeysay adduunyadii aan kala galnay maxaad ii dirtay dawladda darfooqii dhaadheeraa markaan ku dajiyay maxaad ii dirtay dawladda daalimkii markuuna kala dhexgalay aan ku daadiyay hadalka maxaad ii dirtay dawladda duriyad qof lihiyo markaan darajo ku siiyay maxaad ii dirtay dawladda xushmad dareen leh markaan loogada ku hadiyeeyay maxaad ii dirtay dawladda dalabka ku fuliyay markaan doontada yeelay maxaad ii dirtay dawladda markaan dalkii ka tagay adna daarfooqii qabatay maxaad ii dirtay dawladda shaki kugu diirnaa iyo xukun aan la doorsanayn maxaad iigu jirtay naftayda ood ugu doorbitay garasho la'aan una daa'imtay colaadee nafsi aan diirnaxayniyo maxaad suntii ugu dooratay duurkii xawayaanadiyo maxaad dameeradii ii siisay saxaraha haraadkiyo maxaad ugu daysay kulaalka dadka markaan kaa doortay maxaad duraandur ila eegatay markaan daruufta kuu sheegiyo maxaad dacalka iga sii goysay maansada labaad halkaas ayaan ku soo qatimayaa maansada saddexaad dabcan waa hanaan wacan ayaa noqon doontaa albumka koowaadna meeshaas ayaan ku xiri doonaa free styleka waan isku soo dayi doonaa albumka labaad inaan soo sameeyo kuley mac salaama